munaasabada xuska maalinta caalamiga ee badqabka bukaanka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Cusmaan Cabdi Muuse agaasim waaxidada wasaaradda shaqaalaha wasaaradda madaxa ka socotay hay'adaha caalamiga iyo kuwa gudaha dhaqaatiir iyo shaqaale caafimaad oo ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay isla markaasina si aad u faahfaahiyay ujeedadeeda agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska Naciime Axmed Cadow iyo agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Dr. Cabdirashiid Bujeeti xaflad kaliya maan wax maanta inta wada fadhino ama inta u wada joogno waxa inta wada taagan ama u wada fadhinaa waxay tahay baraarujin shaqaalaha caafimaadka ku sameynayno maanta sanadkeena mowduucan wuxuu yahay daaweyn aan waxyeelo lahayn macnaheedu maxay noqon kartaa in bukaanka si sax ah loo daaweeyo daaweyn aan waxyeelo lahayn badan ayaa sameeya waxa sameeya shaqaalaha caafimaadka sameeya maalintan waa maalin weyn shaqada annaga aan qabanayno wasaaradda caafimaadka ay u xil saaran tahay iyo shaqada shaqaalaha caafimaadka ay u xil saaran yihiin waa waxa ugu weyn oo la rabo inay wax ka qabtaan qaar ka mid ah dhaqaatiir iyo shaqaalaha caafimaadka oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay in bukaanada ku jira xarumaha caafimaadka si hufan looga adeego waa maalinta badqabka bukaanka ee ujeedkeedu yahay inaan maanta isku baraarujino bukaanka in macni maxaa lahaye aan diiradda ku saarno bukaanka sidii maxaa lahaye aan ugu naxariisan lahayn sidii bukaanka badbaadi lahayd gaar ahaan markii la ku hadalo daawada ama miiska saarana medicationka marka haddii medication la erona badanaa may ka dhiyaase dadka oo health professionka oo consultationada suubiyaayaan oo dhaqaatiiradan ka horeeyaan nurseska gabagabadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Dr. Cusmaan Cabdi Muuse ayaa bahda caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha caafimaadka waxa uu kula dardaarmay inay si laba jibaaraan dadaalada ay ugu adeegayaan bukaanada ku jira xarumaha caafimaadka shaqaale caafimaad ahaan waxaana looga baahan yahay bukaan walbo ee na soo mutaysta gaar ahaan dadka fiildiga joogo ee maanta xafladda nagala soo qayb galay si walbo lagu dhibaateeyo qofka ku dhibaateeyay hadduu kuugu yimaado xaruntaadii aad joogto wuxuu xaq kuugu leeyahay si naxariis leh inaad ugu adeegto taasaa laga yaabaa inay bedesho xaqiiq maxaa ah qofka ku dhibaateeyay asoo ku baahan uu ku yimid markuu ugu horeyso uu ku arko uu naxaya maalintan ayaa la xusaa sanad walba 17 December waxaana looga talagalay in kor loo qaado ogaanshaha badqabka bukaanka iyadoona sanadkan munaasabada xuska maalintan hal hees looga dhigay daaweyn aan waxyeelo lahayn